iyagoo salaada subax ka soo baxay kalaamka Alle ama Quraanka ku subcinaya ayaa koox wax magarata ah oo aan fahamsanayn wanaagga nabadda wax soo saarka macallimiinta iyo wada noolaanshaha ay rasaas oo doga qaadeen walaalay saar aragtidaada ka dhiibo oo sheer garee si uu u gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo aan ugu helno saaxiibo wanaagsan sidaada oo kale mahadsanid macallimiin dhiga dugsiyaal quraan oo ku yaala deegaanka ama tuulada Koogaar oo hoos tagta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa aroornimadii saakay kooxaha hubeysan si arxan darro ah ugu laayeen iyagoo aan fiirinin una aaba yeelin in macallimiinta iyo culimadu ay ka mid yihiin birimagaydada waxa ay si maalinle ah ugu subci jireen mid ka mid ah dugsiyada ay ardayda ugu dhigaan Quraanka Kariimka ah kahor inta aan la dilin waxa ay soo tukadeen salaada subax waxayna dib ugu soo laabteen goobtii ay kahor inta aysan salaada aadin ay ku subcinayeen si ay dib mar kale subaca ugu sii wadaan inta qorraxdu ka soo baxayso oo ardaydu dugsiga ay ka imaanayaan iyagoo halkaasi ka sii waday subicii ay wadeen balse tii Alle oo qorneed in ay ku dhacdo ayaa macallimiintan u timid taas oo aan wada mari doono qof waliba oo dunida saaran waa mowdka shanta macallin ee la dilay kaliya ma ahayn macallimiin dugsiyada Quraanka ee waxay ahaayeen culimada deegaanka waxaana lagu kala magacaabi jiray Sheekh Daahir Xasan Cali Dheere Macallin Maxmuud Cambuure Macallin Maxamed Xuseen Axmed Cadaawe Macallin Mukhtaar Cabdullaahi Cilmi iyo Macallin Maxamuud Xasan Cali Dheere waxay ahaayeen macallimiin ay dadka deegaanku ka heebaystaan aadna looga ixtiraamo gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka waxaa dugsiyada ay dhigi jireen ka aflaxay arday badan oo diinta iyo Quraanka ay bareen oo dadka deegaanka ah iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe dad badan oo aan la xiriirnay maamulka deegaanka iyo culimada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegeen in aano qabiil loo dilay macallimiinta iyo culimada oo ah dad birimagayda ah